waxay ku soo wada ururtay wixii maanta dhan laga hadlayay mudane dafiraya ma jira xeerosaadka golaha wakiilada waxa shir gudoon la yiraahdo inuu ku cad yahay waxay tahay shir gudoon waxa la yiraahdo gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen nin dafirsan oo shir gudoon ku kala duwan yihiin oo gudoomiyaha iyo waa kala loo oran jiray shir gudoon saddexdaan baa la isku yiraahdo hawsha kan maanta taagan ee isku bedelka gudiyada heer hoosaadku gudoomiyaha gaar uma yeelin si cabaart kaleedin faqradiisa labaad oo oranaysa isku bedelka iyo isku shaandhinta gudiyada golaha wakiilada waxa la shir gudoonka wuxuu yahay hore inuu heerka u sheegay la isuma hayo in gudoomiye cirro uu la tashaday Cali Yuusuf artikelka meesha yaala ee heerka jabani waxa weeyaan ka hadlaynaa eega luqada balu fiirsada siiqada sharcigu markuu hadlayo language gaar u da sharcigu leeyahay ma banaana haduu yiraahdo meel laba kama dhacayso waa ma dhici karto macna lama samayn karo ma banaana in gudina hal mar la wada bedelo waxaan cidi ka murmayn mudanayaashii halkan shariif fadhiyaanay ka murmayn saxaafadu aanay dafiraynin dadku aanay diidaynin gudiyadii golaha wakiilada in gudi walba sideedii loo wada bedelo sharciga wuxuu leeyahay ma banaana okay waxaan tabaan nagu leenahay ma kala xigtaysanayna Baashi Cabdiraxmaan iyo Cali ma kala xigtaysanayna waxaan leenahay kullu ibn aadam khata'un wa khayrul khata'in tawwab hadii gudoomiyaha iyo Cali Yuusuf ilduufeen in ma banaanadaasi meesha taalo hadii Baashi markuu yimid uu gartay oo yiri warda sharcigi uu jaban yahay waan hakinay intaan isaga imanayno oo isku shaandhayntaan sharciga soo waafajinayno waxaan leenahay asaakitu ala alhaq shaytaan akhris baa loorin jiray waxa la isugu kabaayay isugu kaban yihiin gudoomiyayaashu ee shir gudoon loo yiri wixii mid ilduufeen uu ka kala usoo way annaga dooranay annaga meesha noo fadhiyaan annaga inoo hogaaminayaan talada golaha hogaamiyaan nin wax gaar ah jeebka ku sita haduu gudoomiyaha haduu ku xigeen yahay midna ma jiro sharcigan annaga ku soo dabaalayna hadii iyagu ay hawsha sharciga waafajin waayaan oo dhamaysan waayaan gudoomiyaha waa imanaya labadii ku xigeen waa joogan taa sharciyada halka laga akhriyay insha Allah goluhu si asturan buu ku dhamaysanaya